madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Garowe caasimadda maamulkaasi Puntland kulan muhiim ah kula qaatay siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee dalku hadda marayo. Deni ayaa inta uu kulanka socday hoosta ka xariiqay in midnimada Soomaaliya aysan marnaba gorgortan gali karin balse mas'uuliyadda ilaalinta iyo jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu sheegay inay u taalo dawladda federaalka ah iyadana loo doortay. Hase ahaatee Deni ayaa dawladda dhexe ku eedeeyay in ay ka shaqeynayso kala tagga ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wuxuu sheegay in ciidamada maamulkiisa ay ku sugan yihiin gobolka Sanaag halka arinta gobolka Sool uu sheegay in loo xilsaaray madaxweyne ku-xigeenkiisa. sidoo kale wuxuu xusay in Somaliland ay wada hadal ku imaan karto ee aysan ahayn buu yiri mid iska tagtay. Deni ayaa gabagabadii kulanka waxa uu sheegay oo cadeeyay in maamulka Puntland ay qayb ka tahay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo u taagan buu yiri badbaadada dalka aysan aqbali doonin muddo kororsi ka dhaca heer federaal isagoo xusay in go'aano cad ay ka leeyihiin geedi socodka siyaasadda dalka. maamulka Puntland ayaanan ka hadlin tan iyo markii maamulka Israa'iil uu ku soo gardarooday Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. hase ahaatee dadka falanqeeya siyaasadda ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxay ku eedeynayeen inuu la safan yahay dhinaca iyo maamulka Israa'iil uuna ku qanacsan yahay in Somaliland loo aqoonsado maamul ama dawlad ka madax bannaan Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. mana cadda ilaa iyo hadda mowqifka maamulka Puntland mana jirin war saxaafadeed ama war ka soo baxa Puntland oo lagu cadeeyay mowqifkeedu ku aadan in Somaliland loo aqoonsado dawlad ka madax bannaan Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. balse hadalkan hadda ka soo yeeray Deni ayaa waxa uu imaanaya kadib markii cadaadis uu kala kulmay waxgaradka siyaasiyiinta iyo culimada ku dhaqan maamulka Puntland kuwa oo shirar ay qabteen ugu baaqay madaxweynaha maamulkaasi inuu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan gardarada maamulka Israa'iil uu dawlad madax bannaan ugu aqoonsaday Somaliland.